wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa shir looga hadlaya arrimaha Soomaaliya waxa uu ka daafuray dalkaasi Biljamka. Xasan Kaafi Xuseen Axmed ayaa warkan faahfaahinaya. Shirkani oo looga hadlayo arrimaha ammaanka dalka Soomaaliya ayaa si rasmi ah uga furmay maanta magaalada Brussels ee caasimadda dalkaasi Biljamka. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shirkaasi furay, waxaana shirka inta uu socdo lagu wadaa in diiradda lagu saaro xaaladda ammaanka dalka, qorshaha ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ay uga baxayaan dalka Soomaaliya, iyo sidii loo dhisi lahaa ciidamo qaran oo Soomaaliyeed kuwa oo hanan kara ammaanka dalka guud ahaan. Shirka ayaa waxaa ka qaybgalaya wakiilo ka kala socda qaramada midoobay, Midowga Yurub, ururka Midowga Afrika iyo xubno ka socda dalalka daneeya arrimaha Soomaaliya, kuwaasi oo ka arrinsanaya xal u helidda ammaanka dalka Soomaaliya, sidoo kalena dagaalka ka dhanka xarakada Al-Shabaab. Gabagabada shirka ayaa lagu wadaa in shirka ay si wada jira warmurtiyeed uga soo saaraan dhammaan darafyada ka qaybgalaya shirkaasi ka furmay magaalada Brussels ee caasimadda dalkaasi Biljamka.